marabta qalbigaaga inuu noqdo mid faraxsan, nabad xasilooni ay ku jirto oo welibana qani ah. Haddaba dhegayso, farxadda dhabta ah ee islaamku maaha lacag, maaha guul, maaha raaxo. waa run ahaantii xasiloonida qalbigaaga, raalli aashahada allah ku tahay. qur-aanku allah ayaa wuxuu ku yidhi xaqiiqadu qalbiga xasiloon, qalbiga degani waa kan run ahaantii ku qoyan xuska allah. haddaba nebigeennu maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi qanigu waa kan qalbigiisa qani ka ah. taasi macnaheedu waa qalbigu qaniga ahi waa kan mahadnaqa badan, rajada leh, u dhow allah, run ahaantii waa kan runtii faraxsan. haddaba caawi dadka kale, samayso wax wanaaga, ku nool dheelitirnaankaaga, salaadaada, cibaadadaada, shaqadaada, qoyskaaga. qalbigaa ka nadiifo wax dhammaanay xun, shirkiga, xumaanta oo dhan. nabadda iyo farxaddu qalbiga markaa ayay run ahaantii ayaa dhadhami doontaa. haddaba haylooyin farxadda dhabta ah waxay ku jirtaa xuska alleh, dikriga alleh. haddaba maanta laga bilaabo ku dadaalina bixuska, dikriga iyo run ahaantii dadka run ahaantii hadal fiican iyo dhoola cadays iyo hadal wanaagsan. waa mahadsantihiin.